waxaan doonayaa halkan inaan aad iyo aad uga hambaliyeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kulankoodii qiimaha iyo qaayaha lahaa ee ka dhacay magaalada tan Wajaale waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku garab taaganahay madaxweyne hawsha aad qabateen maadaama aynu nahay laba dal oo xuduud leh waxay naga dhaxeeyay waxyaabo fara badan oo ay koow ka tahay nabadgelyadu kulanka labada madaxweyne waxyaabaha koosgareynaya waxa kamid ah sidii nabad loo ilaashan lahaa loona adkeyn lahaa qodobada ugu muhiimsan ee ka wada hadlayeen waa nabadgelyada labada dal Soomaaliland iyo dalweynaha Itoobiya ee aynu xuduudkiisa wadaagno gaar ahaan kilka shanaad nabadgelyadu waa qodobka koowaad amni wal iimaan baa leeyahay amniga wax walba laga horreysiyay marka qolooyinka oranaya madaxweynuhu wuxuu la kulmay madaxweynaha kilka madaxweynaha kilka nabadgelyada marka koowaad inaga dhaxayso xuduudda ugu dheer Itoobiya cid aynu wadaagna waa kilka shanaad inaynu nabadgelyada ka wada hadalnay arrimaha horumarka iyo ganacsigana waa qasab cid ay nabadgelyadu inaga dhaxayso in ka wada hadalna marka waxaan leeyahay dawladda federaalka iyo xiriirka Soomaaliland ka dhaxeeya waa xiriir jira oo nasiyaad kaan doona oo xoogaysan doona waanu jira qolooyinka sida qaldan u fahmay in madaxweynaha kilka iyo madaxweynaha kulmaan waxaan leeyahay waydan garanayn baashi wax badan baa inaga dhaxeeyo nabadgelyadu koow ka tahay marka aad baan ugu hambaleynayaa madaxweynaha kilkana waxaan leeyahay raaligelinta ka bixsan tahay aad baad ugu mahadsan